السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لما نمط الصومالية ما كستخدم ذلك جوتان وأنا أقول لي أنا من عليها كان داون إنسان واتنا الكيني وميت كيني كلا هذين شيء ذوق الواحد يقول هم بلينا يلح بقولكم أيان قارني ما كستو أنا حرف ذي وعسان دي كان إن اللي هو قاعد سبرايز اللي يوصل غير أنا marka ma sha Allah hambaliyeen leeyahay sidoo kale waxaan rabaa inaan ka hadlo arrinkii ahaa markii aan ka soo degay airportka magaalada Muqdisho oo ay dhaceen qaladaad aad u fara badan ayaa rabaa raaligelin buuxda ay ka soo siiyo raaligelintaas oo ku socoto dhammaan shacabka reer Muqdisho yaa xamar oo kaliya ay ku socotaa waxaan leeyahay maamulkii markaas diyaarinayay soo dhaweynteeda xitaa way xakameyn waayeen arrinkaas أنا لفتي مركان ألبورك كسوت غورتا دي آدم فرحسنا وان قيلسنا سيدو كان مركان ألبورك ديارة كسوت دقي ودك بورسوي كانوا الأنسو عندي أيام واحد على إن مكاسي للحلو ورجع سكراي دهين مجال ألبورك يرديسا سائل مدوب وحنا كعجب بهناي أجيكو ذلك ما يشوف مري يا حالة بجرت شعب أسكر تاسس دحيا عاي iyo jaamkaas waxa ku dhaxalay marka amarka waan qaatay anigana markaan banaanka u soo baxay ilaa laankan dhafraa wayo banaanka markaan u soo baxay waxaan arkay oo aan la nahay dadkii iyo askartii oo isdhex galeen aad waliba Shanabaadan jeclaa inaan mar ku soo nastay Nabadan jecla inaan mar ku soo nastay nasiibu waxaan iga fiirsaa kolka aharge iskuul nagu baxo diga iyo dadkuway waayaabanigan waan shoogay noqkana noqday waxaa wallaahi billahi markaas dee awoodi kari waa anoo og in laga sugaanin hadal laga suganaa ahaa ee kaamiramaan iyo rag badan oo caan meesha joogeen haddana waan awoodi kari waa marka inaan meeshaas aan ku hadlo anigu aad uga nahay shacabkayga iyo askartii oo markaas isdhex yaacay dartii waxaana jeclaystay iyo qorrax iyo markaas aad u kululay waxaad u malaysaa qorrax inuu la soo dhaweeyo hal mar anaga dhan wada dhignay marka waxaan jeclaystay inaan dadka ii dhawaa magaca lahaa agtiga jooga mid babarba inaan dhuunta ugu dhago anoo dhahay weliba dhegta waxa ugu sheegay oo lagu baryaa meesha dadka ka dhaqaaji waayo waxaan u cabsanayay waa dadkeygii waa shacabkeygii waa dad walaalahay ah sidoo kale waxaa ku jira dad faamilkayga ah marka qorayga iyo shacabka is dhex maraya marka arko waaba shoogay oo nooc kala noqda marka alxamdulilah waxaa dhacda markaas inaan isla markiiba meeshaas go-aan degdeg aan ku qaato inaan meesha kasoo ambabixiyo elaboorka gudihiisa waan kasoo dhaqaaji isla elaboorka banaankiisa meesha laga soo galay dad kala dhooban yihiin markaas waxaa qasbeen inaa markaas gaariga ka degtaa xataa dad cararays inaa gaariga uga degtid shacabka la hadashid marka meesha dhexdeeda haddana gaariga anuu weliba ii diidan yahay markaasi inaan gaariga ka dego ayaa waxaan jeclaystay inaan gaariga ka dego si aan shacabka ula hadlo oo aan u dhaho bal meesha ka dhaqaaqa meel kalaan tegaynaa hadda ma ahan hadda qorraxda aad u kulul xaalada caadi ma ahan hadda waa 6 saac duhurnimo bal kala xarooda insha Allah anaa mar idiin soo gudbin doona meel aan ku wada kulmayno oo nidaam ah oo habbi aan ku wada noqonayno anigii idinkaba laakiin qorraxda ka xarooda waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dhammaan shacabkii maalintaas intii subaxii aan si ilaa 6 saac duhurnimo 12 duhurnimo meeshaas ii taagnaa ayagoo weliba og xaaladda markaas dalka uu ku sugan yahay markaasi wax walbaba aantinkan habbi wax walba dhici karo laakiin ilaahay nagu marido
waxaan aad iyo aad ugu heleysaan qoraxdii oo jirto idinkii haddana weliba jaamacado lahaa iskuulo lahaa Soomaaliyada ahay waxaan aad ugu faraxsanahay maanta jadwalkeygina liicaatay aan kula kulmo inaan soo dhaweeyo elboorka Sahal meesha Sahal aan jooga aad ay ugu faraxsanahay soo dhaweey barnaamijkan aad la igu soo dhaweeyay Mustafa Samawade walaal aad u mahadsantahay barnaamijka waa ku faraxsanahay anigana waxaan hadafkeyga u soo baxay inaan liicaat soo dhaweeyo walaal marka waa mahadsantahay aan ku leeyahay ma sha Allah magacaagu cili Istar Abdullah isma Istar intee ugu timid xaafadaada maanta كاران أدو قتمت كاران أيا لقى يمت سي أدو وصل وسليعته ما شاء الله دو حدي كنا إنه ما أنت يستطيع غير الفربان يدبج إنه هستو ما شاء الله مركا محاد أصلا عن فرين أدو قدرسا هو يكسر دو دل كذا أد أيام كوجو فرح سنة هاي تغير في عنا يكون هاي ما أد أيام نودي رجلسان يدا نود استاسس درت أيام جدول كي عيال كي ودكس جيران أصاب حسيد عديك وسود ويلا هاي ودكس جيران أصاب حسيد عديك وسود ويلا هاي ما شاء الله ستار وهاي Soomaaliyeed waxayna degan tahay Karaan si ay u soo dhaweyso walaalkeed Liicaato oo magaalada Muqdisho imaanaya ilmaheedii ay kaga soo tagtay oo dugsi ku jiraan ay ka soo tagtay si ay u soo dhaweyso Liicaato runtii asaga inta ay ka daawan doona inta ay ka arki doona maxaad asaga ahaan aad fariin ugu reebaysaa waa soo jeed xalamaan hurdin salaada subax markaan la adimay adinka waad ila adinka ugu dambeeyay la soo jeeday waa soo jeedsay u sugay wallahi aadan u sugay xalay ma sha Allah dhiirigelinta aan farxadda aan ku qabo Liicaato maanta soo dagoogo Muqdisho ku soo dagaa wallahi ma hurdin taageerad aan u ahlay bas wallahi hurdaba iga soo dhiibaysay إلهي dadno ma waay banaanka aad igu soo wada baxdeen taasi waxa ka sii darneyd xitaa markii aan dadkii aan soo kala xariyay iyo hoyga aan ka deganaa magaalada Muqdisho aan nimid haddana in iga soo wacay hoolkii weynaa ee Sahal ayadoo la leeyahay dad fara badan hadda meesha kugu sugay qaarkood way xanaaqeen way dhaqaaqeen ilaa aan ka tii igu dhacday habeenkaas maalintaas madax xanuunka ka qaaday hadeertaana idin soo kacay alxamdulillah jooggeena hadeena ayaan si fiican u saxi doonaa waxaan idinka raaligelinayaa maalintaas dee connectionkaas xitaa dhalinyaradii markaas aad ku wanaagsanaa ee hooshaas kala waday soo dhawaada anigoo kurbaysan oo fikiraayo oo inay maama mar dheexa codkaada iyo waxa soo deysay inta fiirsada niyada iyo dhisantaas dhiirigelinka hela hore u socdaa maama aad iyo aad ayaa ku taageera qof sidaas u taageero wili baan arkay wili waxa ila joogo Maxamed Yare waxaan aaminsanahay inuu yahay YouTuber-ka ugu yar maaragtay magaalada Muqdisho yani dadyo kala tabshay karo magaalada Muqdisho YouTuber-ka ugu yar ayaa maanta meesha aan ku kulanay soo dhaw Maxamed Yare okay ho qabsaday oo ku dhawaay jinaalkaaga saaxiib maadaama aad taageeraya kamid tahay sax markasto waxaan leeyahay taageerayga waan jeclahay inkii maantana halkan waxaan soo dhaweynaynaa Tiina Liicaato oo maanta imaanayo Muqdisho dalkiisa hooyo soo laabanayo dalkiisa hooyo oo maanta soo laabanayo dhulkaaga hooyo ku baahan Liicaato imaa nal damaashaad nal baashaal nal budbud nal farxa oo farxsanay maanta inaan kula joogno waan ku sugeynaa aniyo dad badan iyo saaxiibkayga ma sha Allah Maxamed Yare waxa dabcan aan aaminsanahay inaad tahay YouTuber-ka ugu yar yaa sidee ku ogaatay inuu soo socdo waa ogtahay maxaa social media le arkaan oo qofka markuu imaana waa soo sheega social media ka arkay YouTube-kiisa waa ku xirnaani waa ii soo dhacay waa arkay marka maantana isaga ayaa soo dhaweynayna iskuul iyo dugsi ma lahayd saakiya iskuulka galabtiya dhigtaa dugsiga cashirka iyo waa soo baxay kadib fasaxa soo qaatay dugsigaagii ayaad ka soo fasax qaadatay si aad u soo dhaweyso walaalka Liicaato maanta asagan inta ay ka daawanaa waxa leenahay waa YouTuber ku yar magaalada Muqdisho ayaa maanta u soo baxay horna maadan arkin midiyaas ka baratay waana YouTuber ugu yar magaalada Muqdisho dugsigiisii ayuu ka soo fasax qaatay Maxamed Yare sidoo kale janaalkiisa inta ay idin soo saari doonaa haduu Ilaahay yiraahdo Maxamed maanta laga bilaabo ana garabkayda barnaamijkan aad ila sii wadaysa sidee waragtaa inaad barnaamijka qayb igala sii qaadato isoo agtaagna sida waragtaa okay waa la timinaysa Soomaa adiga wax barnaamij aad duubanaysa ma jiray aniga kaamira ma wadataa ya faraxsana maama oo aad kugu taageera mar walba stress ama kurba aan dareemo oo la socdo adiga waxyaalaha aad soo deyso aad ay kurbada iga yaraataa maama awoodi kari waayeen in intaas qofood ay kala xakameeyaan marka
soo dhaweyn qurux badan aan dhigan doonaa soo dhaweyn waxaan dhigan doonaa hool weyn aan soo qaban doonaa insha Allah hees muqdisho ugu talagalay soo socoto surprise ay kaga dhigi doonaa dadka ilmo laga doo ay sii sheegaya oo hooshida ku guda jirnaa marka waxaan leeyahay aad iyo aad jecelahay sidoo kalena waxa aad iyo aad u xumaay caruurta yaryar ee dugsiga soo gambisay iskuulaadka ku soo gambisay iyo hooyooyinka Soomaaliyeed markaas aan laftigay iyo cadaatay in hoolka sahal markaas ay ku sugnaayeen oo anina halkan aan raali gelin buuxda aan ka siinayaa in leeyahay 114 quraanka cadadiisa iga raali maanta aniga idinkaba ishaleeli weynay hoolka sahal dadkii joogo dhan waan arkay commentiyadiin Instagram-ka meel walba aad iga soo dirteen 100% waxa ila leeyahay iga raali hado cafisa idin weydiisan maalintaasna xaaladu adkay dadkii oo badnaa ila boorka iyo dadku u baqay ayay aan ku imaan waayo sahal anoo waliba aan soo bandhigin oo aan dhigin sahal baan tagayna ay idinkana tagteen Allah idin sharfo waqtiyada soo aadanna video rasmi ah waxa halkan ku arki doontiin ay kugu talagalay inaan idinkii anagaba ay soo fadhiisan aniga iyo fanaaniinka walaalahay aad ay ilmo habeenkaas habeen qurux badan oo noqon doona habeen aniga idinka soo dhaxgal noqon doona Allah idin sharfo waan idin jeclahay hooyooyinka Soomaaliyeed ee subaxaas ugu go'ay iyo hoolka sahal ku go'ay yaadan ii duceynaysa fiidiyoshod aan arkay Allah idin sharfo waxaan leeyahay iga raali hada 100% anigana waxa idin ballan qaaday doonaa aniga idinka anagu askar nagu dhex jirin qoray nagu dhex jirin aan wada kulmi doono waqtiyada soo aadan Allah idin sharfo love you guys